مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. العقائد النسفية لعمر بن محمد النسفي. weli waxaanu ku jirnaa silsiladii noo soo tixnayd ee caqaa'idkii laga dhaxlay nabigeena maxamed salawaatu ullaahi wa azkaa tasliimaatihi calayh. waxaa noo soo dhammaatay caqiidadii alkhariidatu albahiya. halkana waxaa nooga bilaabanaysa alcaqaa'id annasafiya oo uu iska leeyahay sheekhan la yidhaaho cumar bnu moxamed annasafi. sheekhaas ayaa iskale caqiidadan. cumar bnu moxamed annasafi wuxuu ahaa faqiih xanafi ah ayuu ahaa oo culimada axnaafta ah oo macnaha ku cibaadaysata madhabkii istinbaadkii uu kitaabka iyo sunnaha kala soo dhex baxay alimaam abu xaniifa ayuu ka mid ahaa cumar bnu moxamed annasafi. isagoo aqoon u lahaa qaybaha diinta islaamku ay ka kooban tahay guud ahaanba ayuu haddana si gaara sheekhu waxa uu ugu dheereeyey cilmigan fiqhiga. waxaa kaloo sheekhu ilmaam uu ku lahaa ama aada uu u dareensanaa cilmiga xadiiska. waxauna ka mid ahaa sheekhu culimada macnaha la dhihi karo ragga macnaha caqaa'idka alifay sabcada raggooda macnaha xagga zamanka ugu horreeyey ayuu ahaa. sababtoo ah sheekha dhalashadiisu 461 ayay ahayd cumar bnu moxamed annasafi. 537 wuu geeriyooday sheekh cumar bnu moxamed annasafi. kitaabkan marka shuraax badan ayuu iska leeyahay. waxaana hadda ugu badan kutubta mutadaawalka ah oo aad hadda maaragtay loogu isticmaalo kitaabkan uu alifay sacdudiin ataftazani ayaa sharxay caqiidadan. sacdudiin ataftazani waxa uu ka mid ahaa culimadii noolaa qarniyadii 6aad wuxuuna baac dheer ku lahaa culumta tafsiirka iyo xadiiska. gaar ahaan wuxuu ku fogaaday sheekha sacdudiin ataftazani culumta loo yaqaano macquulaadka oo xagga caqliga sida mandiqa iyo balaaqada iyo ayuu baac dheer uu ku lahaa sacdudiin ataftazani. isagoo qaybaha diinta intooda kalena aqoon u lahaa ayuu gaar ahaan sheekhu wuxuu ugu dheereeyey culumta macquulaadka. sacdudiin ataftazani ayaa la sheegaa noloshiisii hore in macnaha maskaxdiisu xagga fahamkiisu cilmiga uu ku cuslaaday kabacdina ru'yo uu arkay ilaahay uu ugu furay cilmigii. ru'yadaas oo ahayd inuu nabigeena ku ruyooday sala allahu calayhi wasalam. markaas ayaa nabigu yidhi iftax faak, afkaaga fur. markaasuu afka furay sacdudiin ataftazani. markaasuu nabigeena candhuuftiisii barakaysnayd afka uga tufay fa balaga maa balag, meeshuu gaaruuna gaaray sacdudiin ataftazani. qisadaasna waxaa si wanaagsan usoo guuriyey kitaabkan mujalladaadkiisu aad ay u fara badan yihiin oo la yidhaaho shadaraatu dahab fi akhbaari man dahab. shadaraatu dahab fi akhbaari man dahab ayaa soo guuriyey. marka sidaasaad macnaha waxaad ku ogaan miisaanka macnaha kitaabkan aanu hadda aqrinayno. sheekha maatinka ah oo matniga qoray iyo shaarixa labaduba inay ka mid ahaayeen culimadii islaamka raggoodii macnaha ugu waaweynaayo baaca dheer diinta islaamka ku lahaa. qaala ahlu lxaqi xaqaa'iqu lashyaai haabita waalcilmu biha mutaxaqiqun khilaafan lisufasdaa'iya. waasbaabu alcilmi lilkhalqi 3: alxawaasu asaliimatu walkhabaru asaadiqu waalcaql. faalxawaasu alsamcu waalbasaru waashamu waaldawqu wallams. وبكل حاسة منها يوقف على ما وضعت هي له كالسمع والذوق والشم. والخبر الصادق على نوعين: أحدهما الخبر المتواتر وهو ثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواضعهم على الكذب وهو موجب للعلم الضروري كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية والبلدان النائية.
قال أهل الحق وحيراهن حقائق الأشياء أشياء إفكان تالله حقيقوين كودو ثابتة حقائق ذات ومتسغن والعلم أقالك بها بحقائق الأشياء أشياء حقائق ذات الأقيهنا متحقق علم قاسمد حقيقه قلنا ذلك سداس أيان أنه نريه خلافا مخالفين حال أن نهيك وخلافا للسوفسطائية فرقة اللي يراه سوفسطائية oo kamid ahayd qolooyinkii mubtadicada adduunka soo martay inaga oo qolada ku khilaafayna mas'alada Sheekh Umar ibn Muhammad an-Nasafi inta uu san u guda gelin aqaaidkii waxyaalaha Ilaahay u waajibahay subhanahu wa ta'ala wuxuu guda galay horta ashiyaadan ifkaan taala sida ay u inkireen qolooyinkan la yiraahdo suufasdaa'iyada inuu muqaddamo ka dhigto oo ku soo hormariyo wuxuu ku yiri sheekhu ashiyada hadda ifkaan taala xaqaa'iqoodu waa wax sugan oo jira oo shay walba xaqiiqadiisu waa wax jira shaygaas ama ha noqdo shay jawhara ama ha noqdo shay carad ah oo wax sugan oo macna mawjuuda macnaha shayga hadii lagu yiraaho waa mawjuud iyo hadii lagu yiraaho waa saabit iyo hadii lagu yiraaho waa mustaqir كل هالمعنى لولا جيدا حقائق الأشياء ثابتة مركو شيخ كليها أشياء دان إفكان جوكتا أو إلهي وكو أبوري ووح سغان ومعنى وموجود وجيران وح موجود الله ريو هذا هجيراني أنكم أغنهي أشياء حقائق دوده مسوحا لأنهي مؤغن ووح جيرا معها والعلم أغالك بها أشياء حقائق دوده الأغيهي متحقق علم قاسي ومد حقيقة أشياء إفكان تعالى أما هنقطة جوهر أما هنقطة عرضه وهو حقيقة هو وقال كأنه قانوا لأنهي معناها ولجدد لقل يهي وحوي إنسانك قف كان بني آدم كائنه جره أو واحد جره يهي هرتوا إن لأقاده مدك لا إنه هدنا جريتان كيسو يهي جريتان حقيقة وأنه أنقنهي هذا نقف كتاوى إنه رميسين معناها قلوين كان سوفسطائية وحيليهين أشياء إفكان تالله وح علمي هلوليه مله وح علمي هلوليه ملها وخيالي معناها الدربي كان وكاله أديك إنها كان دربي أهان كروتو ساي ماهنه وح جرمه ميس كان وكاله وإنها خيال كاga wax ku moodsiinayo inuu macnaha miis yahay oo wax jira uu yahay indhahaga ku moodsiinayo maahane wax jira ma baahaba laakiin ahlul haqq waxay leeyihiin al ilmu biha bi haqa'iq al ashyaa ashyaada haqaa'iqeeda cilmiga lagu leeyahay mutahaqqiq da cilmiga ashyaada haqaa'iqeeda lagu leeyahay waxa loo jeedaa macna waa qayb kamid ah maxaa yeelay qof soo koobi kara ashyaada dhan حقائق العلم ويالن كرا ودي كرا wax walbo ifkaan yaala waan oga ma jirto marka waxa loo jeedaa qof ba qayb uu ka haysta ashyaada ifkaan taala qof ba qayb uu ka og yahay inta cilmigiisa iyo macluumaadkiisa uu gaarayo ayuu kala socdaa qulna dalika saasan khilafan mukhalifin hal lisufasdaa'iyya sufasdaa'iyada aanu khilaafayno walooyinka sufasdaa'iyada waa firqa mubtadicada kamida waxay leeyihiin حقائق الأشياء ما بجرتبه oo darbigan hadaad fiirisid indhahaaga uunba khayaal wax ku suuradaynaya maahane darbi ma jiro insaankan ku hortaagan markaad fiirisid indhahaaga uun xoogaa ku suuradaynayo inuu qof bini aadam yahay maahane wax jira maaha ayagana dhowr firqaa suufasdaayada naftooda cinaadiya la yiraahdo kuwa sidaa qaba ana cinaadiya waxay culimadu ugu bixiyeen madaxdaygooda ayaa ziyaada ah sababtoo ah madaxdaygeedu wuxuu ziyaado uu ku yahay ninkii ku yiri darbigan darbi ma ah indhahaaga si kala ku suuradaynayo waa cinaad mujarrad cinaad
madax adayg macnaha oo geed aan lagu soo gamban macnaha xataa wuxuu inkiri dharkii uu sitay iyo kobihii uu sitay iyo wuxuu leeyahay waa wax khayaali ah hadday khayaali yihiin maxaad u soo qaadatay khayaali hadday yihiin maxaad u soo qaadatay marka culimadu waxay u yaqaanaan cinaadiyow firqa cinaadiya waxaa kaloo jira qolooyin ayaga ka mida oo la yidhaaho laa adriye la yidhaaho suufasdaayaday ka mid yihiin qolooyinkan laa adriyada la yidhaaho macnaha iyagu waxay leeyihiin ashiyaadan ifka taalla waa wax jirana ma dhahayno ma jiraanna ma dhahayno macnaa waxaan waa derbina ma dhahayno derbi maahana ma dhahayno sababta annagu waxay leeyihiin wax xaqiiqa ahaan jiritaankiisa aan u goyn karno ifkaan maba yaallo ifkaan ma yaallo kuwaasna waxaa la yidhaha laa adriya la yidhaha culimadu waxay ka keeneen macnaha laa adriyay u nisbeeyaan laakiin wax walba waxay kuleeyihiin ma ogi waxaan inuu mis yahay ma ogi mis ma ahana ma dhahayo waayahana ma dhahayo laa adri anugu waxba ma ogin waxba ma ogi wax ifkaan aan kala socdo oo isbaat iyo salbi midna aan ku sheegi karo ma jirto waxna ma diidaayo oo ma diidi karo ma jiro ma dhigi karo waxaan sugaayo ifkaan joogana male laa adriya la yidhaha kuwaas marka waxay yidhaahaan xataa anagu waan shakisannahay ay leeyihiin macnaha waxaan wax jira inay yihiin ifkaan yaalla iyo inaysan jirin waa ku shakisannahay xataa waxay sheegtaan inay shakisan yihiin inaysan xataa ogeyn ilaa laa adriya la yidhaha mog xataa inay shakisan yihiin ma ogaa la yidhi oo ma ognay dayn inaan shakisannahay xataa ma ogin marka qoladaas culimmadu lama doodaan mana isku mashquuliyaan suufasdaayada firaqdooda ama ha noqoto qolooyinkan cinaadiyada ama qolooyinkan laa adriyada oo annagu wax ma jasminayn dhahaysa culimmadu lama doodaan waxaase la yidhaha ninkii macnaha isku mashquuliyayba wuxuu yidhaha waxaa fiican ninka suufasdaa'iga ah in dab lagu holciyo oo lagu gubo asagaa qiri doona dabku inuu jiray in kale saa qiri doone ashyaa xaqaa'iqdooda waxba ma ogi markuu leeyahay dabada in looga dejiyaa fiican dab isagaa cabaadi doona markaas war maxaad la markuu cabaado maxaad la cabaadiyaa laleeyahay markaas ma dhigi karo shay khayaali aan la cabaadi oo markii hore maxaad u cabaadi weyse maxaa hadday khayaali yihiin marka war ma laha kuwani waa un dabada in dab looga dejiyo un iyagaa markay gubtaan ama baabi'i doona ama qiri doona ashyaada xaqaa'iqooda wa asbaabulcilmi cilmiga sababihiisa cilmigaas oo lilkhalqi makhluuqa u sugnaaday halaahatun saddex wey sababaha makhluuqu uu wax ku ogaan karo waa saddex sabab makhluuq wuxuu wax ku ogaan karaa saddex sabab makhluuq marka la leeyahay waxaa soo gelaya malaa'igtii insigii iyo jinnigii waxa dhan wey makhluuq oo dhan saddex sabab unbuu wax ku ogaadaa waxaa baxay cilmu lkhaaliq maxaa yeele ilaahay khaaliqa cilmigiisa asbaab kuma xiraba ilaahay cilmigiisa daatadiisu wax u ogyahay ilaahay maahane asbaab kuma xira oo lama dhahayo macnaha ilaahay cilmigiisa waxaa kallifay sababka fulan sababka hebel la yidhaah ayaa kallifay inuu ilaahay caalim noqdo laakin waxaa loola jeedaa makhluuqaadkan alxawaasu waa dareemaha dareemahaas oo asaliimatu oo nabad galay dareemuhu haddii qofku ay u caafimaad qabaan waxbuu ka ogaan karaa waxbuu ka ogaan karaa xawaasu saliima iyo walkhabaru warkaasoo asaadiqu ee runta sheegahay war rumaha lagu sheegay oo waxaa lagu yidhi qadima abuuka min asafar aabbaha safarkii uu ka soo galay waxbaad ogaatay marka hadday qadiyadaasu qadiyo saadiqaa tahay waxbaad ogaatay warna waxbaa lagu ogaadaa oo run ah walcaqlu caqligii waxaa kaloo wax lagu ogaadaa isaguna caqliga oo ilaahay uu ku manaystay subxaanahu watacaala makhluuqaadkiisa qaybo ka mid a saddexdaasaa lagu ogaadaa cilmi maanaa qofku xawaastana waxbuu ku ogaan karaa dareemaha wuxuu kaloo wax ku ogaan karaa war loo sheegay oo saadiqa wuxuu kaloo wax ku ogaan karaa caqligiisa saddexdaasaa wax lagu ogaadaa qayb afaraad oo qofku wax ku ogaan karo wax ku fahmi karo maba jirtaba falxawaasu dareemuhu assamcu waa maqalka
والبصر وعرقي والشم وأرسكي والذوق وددنكي واللمس وتابشدي الحواس الخمسة يقانان dareemaha shantaas xawaas mar baa dil wiira oo kuwa baadiniyada ah loolama jeedo kuwa muuqda ayaa loola jeedaa shantaas wal fal xawaasta dareemuhu khamsun shan as-sam'u maqalkiiw samciga asaga waa quwwatun mudacatun fil casbi al-mafruush fi maq'ar as-simaakh yudraku biha al-aswaat bidariiqi wusul al-hawaa'i al-mutakayyif بكيفية الصوت إلى السماخ كاسا سمع الليلة سمع قوة مودعة أود لبقيو في العصب المفروش سيدك اللغو فراشي في معقر السماخ دولالك السلكيس حدث كفراشا حدث كاس أود لتحقليي أي الليلة سمعي ومركز سبحانه وقال macna dhegahan waxaa dhega loo yaqaano oo meesha ku yaala ayaga samci lama yiraahdo maxay la waxaan xataa hadii laga gooyo muuqda hadii laga jarjaro waxaad maqli haddaan xididkii dhibaato ka gaarin oo awood ay ku jirtay xididka awood ku jirtay wax lagu maqlaayo hadii dhibaato aysan ka gaarin waxyaalahan hadii laga jarjaro waxaad maqli yudraku biha al-aswaat awooddaas waxaa lagu idraagaa codadka waxaa lagu dareemaa marka la leeyahay xaasada samciga waxay iyadu khaas ku tahay idraagtaa codadka bis waxyaalaha mubsaraadka ah oo indhaha lagu arko samcigu asagu ma idraagi karo samciga wuxuu idraagi karaa codadka laakiin wixii indhuhu qabtaan ma idraagi karo asagoo awooddaas ma laha oo haddii hadda indhaha aad isku qabatid dhegihii awooddii indhuhu ay qaban jireen iyagu ma qaban karaan indhaha haddaad isku qabatid waxyaalihii shaqadii ay indhuhu qaban jireen xaasada samcigu ma qaban karto mid walba waxay leedahay wax loogu talagalay shaqo loogu talagalay mid walba u qabto midan waa aswaata idraagi bidariiqi wusuuli alhawaa awooddaas waxaa aswaadda ay ku idraagtaa hawadu markay soo gaarto hawo ayaa ku soo gaaraysa hawahaasoo almutakayafi ee kayfiye loo yeelay bikayfiyati sawtka kayfiyadiisii lagu kayfiyeeyey ila simaakhi duleelkana ay soo gaaraydo hawadaas macnaa kayfiyadii sawtka wadata kayfiyada sawtka waxaa loola jeedaa macnaa shidda wa dacfan wa xusnan wa qubxan macnaa codkaasi hadduu ahay cod weyn waxay ku soo gaarsiin hawadaas isagoo weyn ay ku riday xididkii haddii cod daciifa uu ahaana codkii oo daciifkaa bidariiqi alhawaa seedkii kusoo gaarayo suu ahay way mar walbaba codku siduu ahaa hadduu qurux badnaay oo cod qurxoon u ahaa sidii kusoo gaari hadduu macnaha cod foolxun ahaa sidaasuu kusoo gaari marka samciga waxaasaa lagu idraagaa walbasar araggii basarka isaga waxa weeye waa quwatun mudacatun fi alcasabatayn almujawafayn allatayni tatalaaqayaani fi dimaaq ثم تفترقان فتتأديان إلى العينين يدرك بها الأضواء والألوان والأشكال والمقادير والحركات والحسن والقبح وغير ذلك بصرك وحال إلى أود لدحدقي في العصبتين لبحدد أي لدحدقي أرقى المجوفين جوف الله يولا للدليلية دحدك الدلالة حيدا اسكو دلالو اللتين تتلاقيان في الدماغ waxayna ku kulmaan maskaxda labada xidid maskaxda ku kulmaan oo kulankoodu waa maskaxda thumma taftariqaan markay indhaha soo gaarayaan xididadaasi way kala tagaan oo midna ishaan u soo wareegtaa midna ishaan waxa lagu tilmaamaa acsaabtaas xididada soo gaara suuradda xa oo kale inay yihiin saas lagu tilmaamaa xaada oo kale ana markay halkan ku kulmayaan midna halkan u soo aadi midna halkan sida xaada oo kale isku dhaafayaan fatataadayaan waxay u gudbaan ila al-aynayn labada indhood ay u gudbayaan yudraku biha awooddaas waxaa lagu idraagaa al-adwaa iftiimada waxa iftiinka ah wal alwaan midabyaalka wal ashkaal shakliga shayga shakligiisu inuu yahay wax weyn wax buuran wax caata ah maqaadiirtana waa lagu idraagaa shayga qadarkiisu wuxuu leeyahay xarakaadka dhaqdhaqaaqa xusniga iyo qubxiga wayru dalik halaasaa lagu idraagi basarka asaguna awooddiisa waxa weeye wuxuu idraagi wixii midab
أما افتينة أما شكل أما مقدار أما حركة حسن يقبح مجودن كرو يسقونه أودي سمعك أسقونه مفولين كرو وهذه ما أنت أتريد معنا دجها شمك وحوي وقوة مودعة في زائدتين النائتتين من مقدم الدماغ الشبيهتين بحلمتي الثدي يدرك بها الروائح بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية ذي الرائحة إلى الخيشوم كاسا وحال إلى الشمي شمي قوى أود لدحدقي في الزائدتين معنى الله وضح حدود الزائد كا النائتتين كسو فقاده وكسو بحي من مقدم الدماغ مسكح لماشا اللي هرمريي هل كاسي كي مادان أود معناها أرسك الشبيهتين لوضع حدود اللي بهاي بحلمتي الثدي ناسك لبدي سئب ناسك افتي سوري وحلقو شبهيو يدرك بها الروائح وحلقو إدراجا وحيالها ريحوين أنا وحي عرفايا أما أرايا هي لقو إدراجا بطريق وصول الهواء هوا مركي سوق قارت طريق أنا لقو إدراجا وين هوا سوق قارسي معناه أركا وحصوحا باره هوا صوحا باريس هواها سؤال متكيف كيفية الله يلي بكيفية ذي الرائحة شيء قاس رائحة وصاحبك كيفية أولية هي أيها هوا كيفية سويالنا معناه قبحا وحسنا هذا شيء قاس شيء حنية رائحة دي سحنتهاي هودنا وحي سو حنباري حمانتاس وحي يقرمون يكوسو حنباري هدي وح عرفاي ويهنا هود وحي كوسو حنباري وحي ما رفتاي عرفاي أي كوسو حنباري لام كاسي مرة لغة الصميم ولذا معناها مرة والبابا ذاتك حتى هو يقانا عادي قاهو ماشا قرمونك وكسعوده دينا عالضبيشة هدات كحكسته ورجل ليح إليهن دينا عالضبيشة يقول ليح ماشا كلا الضبيشة يسوع عنك مرايا سمر كاس هودي وسنوك سوء علين قرمونك إلا هودا سوحن بارتو حيالا الموت هودا سوحن باريس سمعيقا نواسدا سوكال سمعيقا هودا سوحن باريس هودا سومارك مقلك قلب كان حتى إذا عدها مركز فيرينيس marka uu maqalka iyo waxyaalahaas uu soo qabanayo uu soo duubayo wax maqlaayo waa in hawadaas loo taago awood dheer waa in la sameeyo hawada loo taago qalab ayagu yaqaanaan ayuu taagaya haddii waxaas anteenooyinkaas aan loo taagin ma soo qabanayo maxaa yeele maqalku wuxuu la shaqeeyaa awoodda hawadaas waa soo qabanaysa wax soo gaarsiinaysa welidaa waxaad arki maalkan idaacadda raadiyaha haddii meel qunfulan taxi oo kale haddii raadiyaha aad ku xirto daaqadaha aad xirtid meel yaro iftiima aad daarisid raadiyaha shid zamu ma soconayo maxaa yeele hawadii codka soo gaarsiinaysaad ka xirtay marka midaan quwada samciga iyo quwada shamiga labadaba waxaa soo xambaaraysa bidariiqi wusuuli ilhawaa taasay kusoo gaaraya awoodda wadaw dhadhankiiw dhadhan hiya quwatun munbasatun fi lcasabi almafruush cala jirmi lisaan yudraku biha طucuum بمخالطة الرطوبة اللعابية التي في الفم بالمدعوم ذوق وحال إلى وأود منبصح أو الغفر دي في العصب المفروش حيث الغفر شيء على جرم اللسان عرف كجرم جيس حيث الغفر شيء أيو كل إحدى يسيه قدنك يدرك بها الطعوم وحلوها لا قدمدا بسبب مخالطة الرطوبة اللعابية قيان كدريرك مركو كقسم معناه التي درير كاسو في الفم أفك كسوغا بالمدعوم وحل قوضي سنة مركو كقسمه معناه الشيء مركز أفك جلسه أو دريرك أو كقسمه دريرك أفك كجره وكقسمه مركز كبعد إدراجي شيء إنه قراري هاي إنه معي وإنه دريرك كقسمه أظن دريرك تابسين أو عنده فيسن تابا لقما يابين إدراكته لقما ياب واللمسو تابشديو حاسدة أو لمسك تابشدة هي قوة منبسطة في جميع البدن هذا مال جوني ماله سيد جوني يو ملح لغو فراشي أما جوني كعان لغو فراشي ماله وحيسوي كل حي عسين يجيرك ودن ولذا عكتا وحبات كدريمي ملح وحبات كدريمي هنا هدي لقاق نجرب مال والب وحبات إدراجة كين أسوي أودكو فرسان جيرك دمانتيس مرك اللمس قال لي تابشده جيرك دمانتيس أيو كفر فرسان يهي يدرك بها الحرارة وحلو إدراجة ساقا كليلك والبرودة قبوغة والرطوبة والقيانك يبوسة قليلك ونحو ذلك هلا شيء علمدا أيها لقوا إدراجي مركب معناها حواس تاسنا وحبال لقوا إدراجها وصمعي وكله معناها الشيء كان أحباتكم مقشاع عدكاس
basarkii waxbaad ku arki, shamigii waxbaad ku urin shaygani macnaha inuu yahay shay carfaaya, inuu yahay macnaha shay urahaya, dhadhankii oo kale wax qaraar inuu yahay, wax macaan inuu yahay, waxbaa lagu ogaada xawaasta. lamsigii oo kale shaygu inuu kulul yahay, inuu qabow yahay, inuu wuxuu jilacsan yihiin, inay adag yihiin, waxaasna waxaa lagu idraagaa lagu ogaadaa lamsigaasaa lagu idraagi. wa bikulli xaasatin minha wa yuuqafu waa lagu ogaadaa bimacnaa yuطalac bikulli xaasatin dareen kasta, xaasadaasoo minhaa min alxawaasi alkhamsi xawaastii shantaas ka mid a waxaa lagu ogaadaa oo lagu daalacdaa calaa maa maladii kii wudicat hiya xaasadaas la dejiyey lahu maaga loo dejiyey. dareen walba wixii loogu talagalaa lagu ogaadaa, waa sida hadda aan usoo kala sheegaynay. maala dareen walba waxa gooniyuhu isagu ogaadaa. samcigii isaga waxaa lagu idraagaa aswaata codadka, xaasadii oo basarka wixii midabka iftiinka waxaasaa lagu idraagi. maahana mideeda kale awooddeeda qaban karta male. haddaad tidhaaho indhahan isku qabanoo dhegihiyaan wax ka arki ma soconayso, ama haddaad tidhaha dhegihiyaan isku dabooli si macnaha indhuhu ay shaqadii dhegaha u qabtaan ma jirto. mid walba waxaa macnaha lagu ogaadaa wixii loo dejiyey, wixii loogu talagalay. wa yuuqafu waa lagu ogaadaa bikulli xaasatin dareen kasta, xaasadaas oo minhaa min alxawaasi alkhamsi calaa maa maladii kiya lagu ogaada wudicat hiya xaasada lahu maaga loogu talagalo loo dejiyey. xaasad walba wixii loogu talagalaa lagu ogaan. waalkhabaru saadiqu calaa nawcayni, waalkhabaru khabarkaas oo asaadiqu ee runta sheegaaya calaa nawcayni laba nooc. khabaru saadiq waxaan ka booda mia wahiya kasamci aan ka booda, wadalika kasamci maqalkii iyo wadawqi dhadhankii iyo washami uriskii oo kale. waxyaalahaas oo kale mid walba waxaa loogu talagalay. saddexda sheekh uu misaaliyey mid walba wixii loogu talagalay maahane wax kale awood kale ma gudbin karaan. waalkhabaru khabarkaas oo saadiqu runta sheegaayo calaa nawcayn. warka runtaa laba nooc u qaybsamaa. macnaha wixii kadibka ahaa oo beentaa sheekh uu iska dhaafay, maxaa yeele meesha cilmi ayaan ka hadlaynaa hala ogaado. axadumaa labada nooc midkood alkhabaru waa khabarkaas oo almutawaatiru ee israacraacay, mutawaatiraa la yidhaha. wa huwa khabarka mutawaatirkaa alkhabaru waa khabarkaas oo ahaabitu ee sugnaaday calaa alsinati qawmin qoom carabadooda ku sugnaaday, qoomkaasoo laa yutasawaru aan la suuraysan karin tawaadu'uhum iswaafaqooda cala alkadib, been in isku waafaqaan aan la suuraysan karin. khabarka mutawaatirka waxaa la yidhaha waa khabarka ku sugnaaday qoom carabadooda, qoomkaasoo aan la suuradaysan karin inay been isku raaceen, marnaba aysan dhici karin. ama laa yatasawaru la yidhaaho musame laga dhigo, qoomkaasoo laa yatasawaru aysan suurtogelaynin tawaadu'uhum iswaafaqooda cala alkadib. marka waxaa la leeyahay alkhabaru almutawaatir waa xujo, been macnaha inaysan isku raacin sidaasaa macnaha la goyno. wa huwa khabarkan oo mutawaatirka ah muujibun lilcilmi, ogaal ayuu waajibiyaa, cilmigaas oo daruuriy ee daruuriga. cilmiga daruuriga waa waxaan u baahnayn imcaanu tafakur iyo ta'amul iyo waxaa uma baahna. macnaha inaad maskaxda ka shaqaysiiso ood fikirto uma baahna. marka cilmi daruuriya ayuu waajib yeelaa khabarka mutawaatirka, macnaha fikr iyo uma baahna wey. macnaha wixii mutawaatir lagugu sheegay. wadalika kalcilmi ogaal oo kale bilmuluki boqorradii aan ognahay, boqorradaasoo alkhaaliyati tegey fi lazminati zamanada dhexdooda ku tegey, zamanadaasoo almaadiyati ee tagtay, walbuldaani beledyaalka cilmiga aan u leenahay oo kale, beledyaalkaasoo annaahiyati cannaa annaga xaggeena ka fogo, beledada xaggeena ka fogo aan ognahay. waxaasoo dhan khabar mutawaatir ay nagu soo gaareen. wuxuu sheekhu ku misaaliyey mutawaatirka boqorradii tegey ogaalka annagu aan ognahay, macnaa boqorradaa tegey ogaalka annagu aan ognahay oo kale, cumar ibnu cabdilcaziiz oo kale radia allahu tacaala canhu jiritaankiisa aan ognahay oo kale, almeliku alcaadil boqorkii caadilka ahaa, almelik mucaawiya oo kale, sayid mucaawiya, sayidina cumar oo kale inuu macnaha jiri jiray oo boqor uu ahaa jiray, cilmiga aan u leenahay oo kale, sayidina abubakr, sayidina cali wahaakada. waxaas macnaha wixii kugu soo gaaray oo intaas oo daduhu ay soo naqliyeen wuxuu waajib yeelay cilmi daruuri ah. fikir kaama baahna inaad maanta ku fikirto tiraa
warami macnaha sayidina abubakar inuu macnaha ummadda u tali jiray iyo in kalaan bal ku fekeri taasi waxay la mid tahay inaad leedahay jiritaankaygaan ku fekera talow anigu nin jira ma ahay mise cadam aan ahayo adduunyada waan ka maqana taasay la mid tahay waa cilmi daruuri walbuldaani cilmiga magaalooyinka annagu aanu u leenahay buldaantaasoo anahayati cannaa xaggeena ka fogaatay magaalooyinka naga fog cilmiga aan u leenahay oo kale magaalooyin naga fog macnaha waxa weeye dhul ciraaq la yidhaha inuu jiro ciraaq dhul la yidhaha inuu jiro dhul maka la yidhaha magaalo maka la yidhaha inay jirto almadinatu almunawara madinatu almunawara inay jirto baqdaad dhul la yidhaha inuu jiro khuraasaan dhul la yidhaha inuu jiro waxyaalahaas oo dhan waa cilmi daruuri maxaa yeelay jiritaanka almadinatu almunawara iyo maka almukarama jiritaankeeda ee baqdaad iyo khuraasaan waxay nagu soo gaareen khabar mutawaatir ah maka inay jirto madiina inay jirto baqdaad inuu jiro khuraasaan inuu jiro dad badan oo aysan dhici karin inay been isku raacaan ayaa na soo gaarsiiyey saas awgeed qofkii yidhaaha macnaha waxaan bal ku fekeri magaalada maka iyo madiina inay jiraan iyo in kale wuxuu la mid yahay isagoo ku fekeraya oo kale waxaan ku shakisanahay bal cirkaan inuu iga sarreeyo assamaa fawqana cirku inuu iga sarreeyo in kalaan bal ku fekera ma dhici karto taasi la mid taha ninka inkiraayo macnaha maka jiritaankeeda shakiyaa iga jira ama wujuud almadina almunawara jiritaankeeda shakiyaa iga jira dhahay waxay la mid tahay inuu yidhaaho macnaha ama wuxaan ku fekeriyu leeyahay alardu taxtana dhulku waa naga hooseeya bal talow dhulku inuu naga hooseeyo in kale ayaan ku fekeri ma dhacayso kaas oo kale waxaa la leeyahay waa khabar mutawaatir ayuu nagu soo gaaray wa nawcu noocaasu athani ee labaad khabaru rasuuli waa rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam khabarkii uuna soo gaarsiiyey rasuulkaasoo almu'ayadi ee la ayiday bilmucjizati mucjizada lagu ayiday macnaha khabarka saadiqa ayaa laba nooc loo qaybiyey midna waa mid mutawaatir ah oo wuxuu waajib yeelahaanu nidhi alcilmu daruuri kan labaadna waa warkii rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam ee lagu ayiday mucjizada ilaahay uu sameeyey subxaanahu watacaala mucjizaadka nabigeenu uu la yimid calayhi salaatu wasalaam waxaa ugu weyn qur'aankan kariimka ah oo ilaahay uu usoo dhiibay nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa acdamu mucjizatin lirasuuli illahi muxamedin sala allahu calayhi wasalam wa huwa khabarka rasuulku yuujibu wuxuu waajib yeelaa alcilma alistidlaaliya cilmi istidlaali nadarigu ka wada cilmi macnaha istidlaali daliil loo nisbeeyey ayuu isagu waajib yeelaahay daruuri ma waajib yeelahayo macnaha warka nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay oo uuna soo gaarsiiyey isagu wuxuu waajib yeelaa cilmi istidlaali ah macnaa cilmi istidlaaliya waxaa loola jeedaa wuxuu u baahan yahay wararka rasuulku sala allahu wasalam calayh qof aan ku fekerin oo imcaanu nadar aan fiirin oon maskaxdeeda ka shaqaysiin ma fahmi karto si daruuriya kuma fahmi karto oo lamid maaha warka rasuulku asamaau fawqana lamid maaha maxaa yeelay haddii wararka rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam hadday lamid ahaa lahaayeen asamaau fawqana dadka dhan ba axaadiista waa wada baran lahaayeen oo qof walba wuxuu leeyahy waa wada aqaanba warkii rasuulka mamana loo baahdeen qof u xereystay axaadiis qof u xereysta ama la yidhaaha macnaha axaadiisaan u baahanahay lama arkeen maxaa yeele qof walba wuxuu leeyahay waaba iska ogahay ma asamaau fawqanaad ibari hadda nin walba saasuu dhihi lahaa ilaa waxa weeye cilmiga daruuriga ah waa waxaan isagu u baahnayn nadar iyo ta'amul waxaan u baahnayn istidlaaliguna wuxuu ula jeedaa sheekhu waa midkii nadariga ay u yaqaanaan nadarigaasuu istidlaal ula jeedaa marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wararka uuna soo gaarsiinayo waa cilmi istidlaali ah ee daruuri ma aha hadduu daruuri yahay qof walba ay sariirteeda iska seexan lahaydoo qof macnaha isku mashquuliya lamama arkeen waalcilmu cilmigaasoo ahaabitu sugnaaday bihi bikhabari rasuuli rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam khabarkiisa cilmiga ku sugnaaday yudaahi cilmigaasi wuxuu u eg yahay alcilma cilmiga ayuu u eg yahay cilmigaasoo athaabita bidaruurati daruurada ku sugnaaday oo xagguu uga eg yahay fi tayaquni xagga yaqiintu uga eg yahay iyo wasabaati xagga sugnaanshaha ayuu uga eg yahay
wararka rasuulkeenu na soo gaarsiinayo sala allahu calayhi wasalam wararkaas waxay u egyihiin cilmiga daruuriga ah ayay shabahaan oo macnaha cilmiga daruuriga ah oo fikir aan kaaga baahnayn ka tasawuri wujuudik adiga jiritaankaaga oo kale inaad ogaato oo kale wa ka tasawuri ana samaa fawqana samadu inay naga sarrayso inaad tasawurto oo kale kuwaasuu la mid yahay wararka rasuulkeenu sala allahu wasalam calayh waxayna kula mid yihiin xagga yaqiinta iyo inaad hubto hadda cirku inuu kaa sarreeyo sow yaqiin ma ah oo ma hubtid warka rasuulkana waa la hubaa dhinacaasuu kula mid yahay ee kala mid maaha macnaha ubaahasho la-aanta uusan u baahnayn xagga nadarka dhinacaas kala mid maaha wuxuu kala mid yahay macnaha xagga hubitaanka iyo wax sugan inay asamaa fawqana wax la hubo soo maaha warka rasuulkana saasaa loo hubaa inuu run yahay macnaha laa shaka fi dalik wa ama alcaqlu qaybtii saddexaad wa ama alcaqlu caqliga fa huwa caqligu sababun waa sabab lilcilmi cilmiga ayuu sabab u yahay aydan sidii hore caqligu isaguna wuxuu sabab u yahay in wax la ogaado ayuu sabab u yahay sababta ah qofku hadduusan caqliba lahayn dee cilmi ma yeelan karo caqli hadduusan lahayn waxba ma ogaan karaba waa mixwarkii dhammaa oo cilmigu uu ku taagnaa wamaa ay ladii kii sabata sugnaaday wamaa ay ladii kii sabata sugnaaday minhu min alcilmi athaabiti bilcaqli cilmigaas oo caqliga ku sugnaaday wixii xaggiisa ka sugnaaday bilbadiihati fikir la-aanna ku sugnaaday adoon ku fekerin fa huwa daruuriyun waa daruuriyaa la yidhaha wadalika kalcilmi ogaal oo kale bianna kulla shayin shayga kulligiisu acdamu min juz'ihi shayga juskiisa inuu ka weyn yahay la ogaado oo kale macnaha sheekhu wuxuu ku leeyahay raximahu llahu tacaala wixii ku sugnaada caqliga bilbadihana ugu sugnaada fikir la-aan adoon ku fekerin wixii caqligaaga uu iska fahmaayo fa huwa daruuriyun daruuriyaa la yidhaha alcilmu daruuri daruuri macnaha waxaa la yidhaha ku leeyahay wixii caqligaaga aad ku ogaato fikirna aan kaaga baahnayn wixii hadda aanu sheegaynay oo kale macnaha ka tasawuri wujuudig inaad adigu jirto oo kale inaad tasawurto oo kale dee waxaas miyaa fikir kaaga baahan wa ka tasawuri ana alarda taxtana dhulku inuu naga hooseeyo inaad ogaato oo kale oo tasawurto oo kale waxyaalahaas oo kale waa badiihu wa ka tasawuri an laa yuujada nahaarun biduuni duluuci shams inaad tasawurto oo kale maalin inaan la helayn iyadoon qoraxu soo dhalan markaas ma fekeray u baahanta qoraxyadoon soo dhalan inaan maalin la helayn la maalinta waxay ku timaadaa markii duluucu shamsi la helo markaasuu isaguna laazima oo meesha u yimaado waxaas oo kale waxaa la yidhaha alcilmu addaruuri daruuriyaa la yidhaha wixii macnaha fikir iyo ta'amul aan kaaga baahnayn wannadari maxtaaja lita'amuli wa cagsuhu huwa daruuriyu ljali macnaha wuxuu ku leeyahay wixii nadari waxaa la yidhaha wixii fikir uga baahda iyo ta'amul kaa cagsigiisuna waa daruuri waxa mujaradu tasawurika aad ku fahmaysid maxaa ka mid a sheekhu wuxuu taa ku misaaliyey cilmiga daruuriga ah kalcilmi ogaal bianna kulla shayi acdamu min juz'ih inaad ogaatid shayga kulligiisa iyo juskiisu inuu kulligu weyn yahay misaal hadda miiskan oo kale miiskan wuxuu leeyahay afar lugood ayuu leeyahay halkan lug oo miiska ka mid a waa jus inta kalena waa kulli marka kulligu inuu juskaas ka weyn yahay ma shakiga kaaga jira mase waa ku fekeri waxaad leedahay taas ta'amulay u baahanta hadda jidaarkan oo kale tiirkan oo kale saariyada oo masjidka waa juz min almasjid qayb masjidkii ka mida marka masjidka intiisa kale waa kulligii iyaduna waa juzigii ma waxaa shaki kaaga jira masjidka intiisa kale inay ka weyn tahay halkaas tiir oo masjidka intiisii kale ay weyntahay ma shakiga kaaga gela waxaas oo kale waxaa la yidhaha alcilmu daruuriya gacantaadoo kale iyo intaada kale oo soo hartay yaa weyn ma gacantaadaa weyn mase inta kale yaad u sheegi taas yaad u sheegi midaas wadbar waxaasa nadari iyo barasho u baahan waxyaalahaas oo kale waxaa la yidhi cilmu daruuriyaa laleeyahay
بأن كل شيء أعظم من جزئه. وما أي الذي كي ثبت سقناده بالاستدلال استدلال الدليل وحي كسقناده فهو علم قاسي ما قاس فهو ما قاس اكتسابي شقيس من لو نسبيه وحي لكن يسوي كسقناده استدلال نظر تأمل إمعان وحيالها سوحي أباهنا هيا اكتسابي اللي علم معناها كسب لو نسبيه كسب wax loo nisbeeyo macnaha shaygi ma fahmi kartid ilaa adilla in loo soo oogo iyo xujooyin in loo soo oogo maahane si kale uma fahmi kartid kaas oo kale waxa la yiraahaa iktisaabi amadka cibaarad fara badan laga cabiraa iktisaabina waa la yiraahdaa macna nadarina waa la yiraahdaa istidlaali waa la yiraahdaa iska magaciyo kala bedbedelay sheekh iska nadariyo waxa kamida كتصور أن هذا العالم حادث عالم كان إنسان قديم هاي أو حادث وياي إن هذا وقاسات ربطان ضروري ما هكذا اكتسابي محايل الدليل وكاقبهاي وأنا قضايات صادست دليل بهاي حجة عقلية والنقلية بهاي عالم كله حادث يا إن لو قاس حجة عقلية يمد نقلية أنت بهاي والإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق والإلهام إلهامك ليس إلهامك من أسباب المعرفة أقوانت السببه إذا كمد معها بصحة الشيء شيئا صحنمدي سنة الله أقوان صدف عند أهل الحق أهل الحق أكتيس كمد معها أسباب المعرفة إلهامك وحال يرى إلقاء معنى في القلب بطريق الفيض ومعنه إن إلهي قلبك وكاغسو ريدو أديقو آذان كسبان أوذان شقيسان لكن إلهي كوغسو الشبي وكوهي بي إلهي إلهام كاسان ليلة أنا ضدقاره إلهي سبحانه وتعالى أوليدي سكمده ضدقاره إلهي أوليدي سكمده الله سيا إلهام معاني اللقشبة يقو علمي أيسان أهر فريسان الشيوخ ده علم الشيوخ ده إيا مدارس تمدنا أيسان أهر فريسان أيا إلهي قلوبته وقشب كاسو كلام مركة كمد معها أسبابت معناها لغو أقوانصده شيء إنه صحيح يهي إنه صحيح هاي أهل الحق أكتب معناه وحالو لجيدا مركا شيخ وليه هاي إلهامك كمد معها أشياء لغو أقوانصده شيء إنه صحيح يهي إنه فاسد يهي أنا وحو لجيدا ضد عوامت بشركو أي وحكوك لفهم كران ما بشرك قود أهان عوامتيس كل أهان وحي وحكوك لفهم كران ما لكن خواستا اسكال إلهامك أنا وحن كهد لين موقتها ضدك وحيالي أي شركة وذيهين هذا حواستي ودن ضدك شركة كوه الخبر السادد ضدك يا شركة كوه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم ضدك شركة كوه متواتر كي ضدك شركة كوه لكن إلهامك ضد وقار كويه ضد قارها كوه أنكر صحة شيء وفساده لكن وح كل يوم لوردن يهي وضدك ودن يحكوه وأنكران ما ساسو كوه يا شيخ ما أنا هو فاهمين معناها إلهامت إلهي ضدك خواستا وصينايو وإبر هو فهم أحول لكم كلا فهم ساهو فهم معناه وحولة أسباب شاملة لطبقات الشعب ولطبقات البشر معها أسباب ضدك ودن يحكوه قال معه وضد قال يحكوه قال والحق مركب سيرونه فالعالم عالم بجميع أجزائه